Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaad kusoo dhawaataan channelka Somali Share Education Network. fadlan haddaad tahay qof nagu cusub subscribe-taada nagu caawi, sidoo kale gambaleelkana furo si ay kusoo gaaraan muuqaalada aan soo dhigayno. Videogan waxaan ku qaadanaynaa qaabka aan Google Chrome-ka dark mode aan ugu soo darsan lahayn. Si aan ugu soo darsano ugu horeyn waxaan kicinaynaa Google-ka. Markaad soo kicisidna kadib halkan waxaa ka booqanaysaa google.com ama halkan iskaga riix Google. markaan qorno meeshan ayaan waxaan ku qoranaa dark mode markaad aadid slash ayaa leedahay night reader wuuna soo baxay midkan aan klik gareyno. markii aad klik gareysid kadib waxaad sameynaysaa in midka ugu koreeya dooro. markaad dooratid waxaad arkaysaa meesha wuxuuna keenay in web store la yiraahdo. in meeshan waa meeshii extensionada aad ka soo baxsan lahayd. haddeertaan extensionkan oo dark mode-kan ayaa noo soo baxay, marka asiga ayaan raadinaynay, asiga ayaan soo klik gareynay. mar alla markaan soo kacone add to Chrome ayaa leedahay. add to Chrome markaad dhahdid automatically wuxuu ku leeyahay ma u baahan tahay, marka add ayaan leenahay. in add markaan dhahnay san arkayno in automatically wuxuu kusoo biray extensionada ku xiran ama ku jiraan in Google-keena. haddeertaan saad arkaysid wuxuu ku leeyahay in dark mode night reader waa lagu soo daray. marka hal mar aan klik gareyno meeshan okay, san arkayno waxaan ku guuleysnay in aan extensionka dark mode aan barno browser-keena. haddeertaan halkan ayuu ka muuqdaa. marka haddii aan haddeertaan aan isku dayno aan booqano for example in Facebook ama aan dhahno Yahoo hataa aan booqdo yahoo.com markaad dhahdid waxaad arkaysaa dark mode-kii inuu active noo yahay. in website-kan in sidaan muusan ahayn waa white ayuu ahaa, balse wuxuu ka dhigay dark mode. had iyo jeer muuqac walba aad booqatid wuxuu ka dhigi doonaa in sidaan. haddeertaan haddii aan tijaabino YouTube-ka xataa aan fiirino hadduu bedel doono, haddii kale YouTube ayaan leenahay aan kala gareyno waxaad arkaysaa in still masha Allah in dark mode-kii wuu noo active gareysan yahay. haddii aan u baahan nahayna waxaan tag karnaa in Facebook-ga asigana aan fiirino. enter ayaa leedahay kadib Facebook ayaan sidan ku booqanaynaa. Facebook markaan imaanay in sidoo kale dark mode-kii waa active gareysan yahay. website walba aad booqatid sidan ayuu ahaanayaa. in marka haddii aad u baahan tahay inaad waxa ka bedeshid waxaad imaanaysaa asiga dushiisa kadib right click ayaa leedahay. right click markaad dhahdid waxaad leedahay in haddii aad u baahan tahay waa iska qari kartaa, haddii kale remove ayaa dhihi kartaa. sidoo kale options ayaa halkan ku qoran. meesha haddii aan fiirino wuxuu leeyahay in yaan ku apply gareyna dark mode. haddii aad dooratid all sites, haddii aad dooratid macnaheedu meel walba aad booqatid ayuu active ku yahay. haddii aad dhahdid YouTube-ka maadaama haddeertaan aniga aan YouTube-ka aan joogno automatically YouTube-ka un ayaa dark mode ahaan doono. haddii aan u baahan nahayna waxaan dhihi karnaa when you click the extension mar alla markii aan soo klik gareyno. hadda haddii aan option-kan doorano in kadibna aan refresh gareyno maxaa dhici doono aan fiirino. okay, saan arkayna markii aan refresh dhahnay automatically waxaa soo laabtay in midkii originalka ahaa. in haddii aan u baahan nahay inaan dark mode aan kusoo celinina asiga ayaan klik gareynaynaa. klik markaan dhahdid waxaad arkaysaa meeshii isbedeshay oo noqotay black. sidoo kale mar labaad haddii aan klik gareyno waxaan arkaynaa black oo tiq ah inuu noqday. sidoo kale haddii aan klik gareyno waxaan arkaynaa meeshii black isbedeshay ee noqotay xoogaa white, balse white oo pure ma ahan. haddii aan markale aan si klik gareynayna waxaan arkaynaa in white-kii originalka inuu soo baxay. marka waxaa fiican inaad had iyo jeer aad dooratid option-kan ah in markii aan klik gareeyo because in waxaa dhici karto in haween iyo maalin in aadan ku active gareynin in dark mode-kan kaliya aad u baahan tahay waqti mucayan. markaas dhahdid xilligan ayaad u baahan tahay kaliya waxaad imaanaysaa dhankan click ayaa leedahay automatically asiga ayaa active ku ahaan doono. waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. videogan halkan ayuu ku eg yahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.